أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لير آد بني سلامية وقت كسود كجرتين وحنا لا هدين وعناضو أنت كبعدي waxaa jiray hadda ka hor inaan video ka sameeyay khataraha badan ee ku wajahan caruureyna guriga jooga, caruurta geemka ciyaara, caruuraha social media isticmaala, any platform oo social media caruuraha isticmaala inay khatar badan ay ku wajahan tahay. run ahaantii waqtigeena ku jirno wallahi waa waqti aad iyo aad u adag, waa waqti yani cabsiya oo caruuruhu yani aad oran karto wallahi waqti xun bay kusoo hagaageen, sababtoo ah xilligan iyo casrigan aan ku jirno waa casriga internet. wax kastoo based wuxuu ku yahay internet baa guri walba ku jira, internet baa mobile walba yani ku xiran. waa noloshii baa noqotay mid ku xiran taas, iyadoo internet ku leeyahay wanaag badan oo waxa badan laga faa'iiday, oo waxa weeyaan waa midi laba af leh. wax badan oo yani qofka bini'aadamku ka faa'iiday ayaa jiro. maanta cilmigii oo dhan baa dhex socda internetka, oo qofku isagoo gurigiisa jooga ayuu maanta cilmi nooc walba uu rabo, cilmigu noocu doono, mid diini ha ahaado, maadi ha ahaado, internetkaas gurigiisa ku xiran ayuu kala soconayaa. qofkii gurigiisa jooga jaamacada ka baxaya maanta oo waxa weeyaan shahaadooyin master iyo PhD qaadanaya, qofkii gurigiisa jooga intaasoo koorso oo qofku rabo inuu sameynaya. yani qofku wuxuu saamaxay oo fududeeyay inuu qofku isagoo noloshiisii kala wata in uu adduunkii kale nala socon karo, aw noloshiisii xagga tacliinta aw hore u sii wadan karo. sidoo kale internetku waxaa fududeeyay isku xidhka bulshada, oo dadku inay yani isku xidhnaadaan meel walba adduunka kala joogaan ayuu saamaxay. oo maanta qofkaagii oo yani jooga adduunka yani meel dee aad u fog, aad kaaga fog, ayaad si yaroo fudud aad ula sheekaysanaysa, ula joogtaa minid xaaladiisana ula soconaysa. yani waa horumar weyn oo adduunku gaari weeyaan, alxamdulilah, waa wax fiican. haddana waa mididaadii labada af leh. waxa weeyaan caruuraheena yaryar khataro weyn ayuu ku hayaa internetku. caruuraha teenage-ka iyo kuwa ka yaryar khataro waaweyn buu ku hayaa. waxaa jira grooming wax la yiraahdo caruuraha ku sameeyo, oo nambaro leh, oo platformyada oo dhan isticmaala. oo hadda wallahi dadkii xataa cadaankii cid walba ay ka qaylayaan, oo caruurihii aad loogu cabsanayo. oo caruurta waxaa jira ugaarsada, gruubyadaasi caruuraha ay ugaarsadaan, geemamka ciyaarayaan inta badan ay kala xiriiraan. geemamku waxay leeyihiin chatbox bay leeyihiin. tusaale ahaan geemka aadka u fahmayska caruur aadka u ciyaaraan inta badan Roblox la yiraahdo, chatbox buu leeyahay. chatboxka dadku waa iskula xiriiraan, dadka wada ciyaaraya waa iskula xiriiraan, waa is adgaraynayaan, halkaasay ka sheekaystaan. chatboxkaasi dadkaas wada xiriiraya badanaa ilmuhu wuxuu moodayaa ilmo sidiisoo kale oo la ciyaaro oo la sheekaysanayo, laakiin waxaa jira dadiyo waaweyn oo caruurta kusoo dhex dhuunta, oo waxa weeyaan ilmo yar iska dhigaya, oo ilmihii la sheekaysanayo odhanaya imse jir baa tahay, intaasan jira, ana intaasan jira. waalido badan waxay ku war heleen caruurtan dadka la sheekaysanaya inay dad waaweyn yihiin iyo hadallada la isdhaafsanayo. caruuro badan ayaa khadka laga saaray, caruuro badan ayaa xataa waxay ku sameeyeen fiidiyoyo caruurta ka duubaan. waxay dhahaan fiidiyoyo ay ka duubaan waxyaabo badan oo aan fiicnayn bay caruurta ku qalqaaliyaan, oo ay baraan khataro waaweyn, oo waxyaabo badan oo noloshooda khatar ku ay geliyaan. hadhow ilmuhu haddii aw yiraahdo ka baxday xataa khatar kale oo kasii weyn baa wajahdo, oo ilmaha blackmailing iyo waxyaabo badan ku sameeyaan. marka group caana gruubyadan oo hadda social media caruuraha ka ugaarsada. marka waalidka waxaa markasta laga meelo badan social media fariimo badan baa dhex socda, oo yani leeyahay ka foojignaada dadyowga noocaasa, ka foojignaada la dhahayo. I think 748 baa u maleynaya nambaro noocaasay wataan. dadkaasi waana dad la yaqaano, waana internetkaasay dhex socdaan. caruurahaasay intaas ka ugaarsanayaan. waxay baraan waxyaaba anshax xumo ah oo aan fiicnay, waxay baraan tuugnimay baraan, dadka loo dhaco, waxay baraan ilmi inuu xataa isagoo gurigii joogo gaan iyo dadka loo laayo, waxaa badan ilmihii la baro.
ay markay wada ciyaarayaan xataa inuu qofka qof kala dhici karo waxyaabo badan oo aanan wanaagsanin ba ilmaha yar baraan. marka caruurta in la foojignaado oo ilmaha markuu gameka ciyaarayo ilmaha in la fariisto oo la arko intuu chatbox kana ilmaha waa inaad ka xidhid totally. ilmahaagu hadduu chatbox au leeyahay gameka waa laga xidhi karaa waa inaad ka xidho chatboxyadoo dhan ilmaha inuuna isticmaalin oona cidna la sheekaysan oo just ka ciyaaruun. waa inaad ilmaha mar walba u sheegto, waa inaad mar walba ilmaha khatarta jirta aad kala sheekaysato, waa in la dhibaatooyin weyn kasoo wajihi karaan, waa inuu ilmihii aware noqdo oo fahmo waxaan khatarta uga iman karta. ilmaha la fadhiiso la sheekayso wax badan uu fahmaya ilmuhu, isaga ayaa is ilaalinaya. caruurta yaryarna wallahi markii 10 jirka yihiin ma fiicna inay geemka isticmaalaan, inkasta imka isticmaalaan oo markuu ilmihii arko kuwii waaweynaayo oo ciyaaraya isaguna waa ku dayanaya, waxa weeye waa ciyaaraya. laakiin ilmuhu markuu aad u yaray waliba wuxuu u baahan yahay supervision aad u badan buu ilmuhu u baahan yahay. markastuu ciyaarayana limited time inuu ciyaaro waqti go-an oo adigu aad la fadhida waalid, because mas-uuliyad baa caruurta naga saara. the end of the day ilmaha mas-uuliyad baa naga saaran. waalidnimadu aad bay u adagtay, laakiin casriga la joogo waalidnimadii waa double, shaqadu waa double. waxa weeye waadii internetka dad korayeen internet jirin ama internetku awna sidan imika social media wax walba dee laisku dhaxyaacay ayna jirin, dee kursiimadu waa fududeyd moogtahay. ilmaha inaad dabad ka ilaalisiyo waxyaaba asxaab xun waxaana dad unbaa laga ilaalin jiray. laakiin hadda ilmihii gurigaagii jooga oo gurigii jooga leedahay dabada dhibtii jirtay uu ka badbaaday buu khataro waaweyn kala kulmayaa gurigiisagoo jooga oo through internet. caruur badan oo la dhibaataya khadka laga saaray baa jira, caruura diimaa laga saaray baa jira, dadkii calamada intaa dhex socda, kuwii diinta faafinaya dhex socda, you name it. wax kasta oo xun ilmaha waa lagu buligaraya. caruurta xataa wallahi aad ba xataa qaarkood loogu buligaraya oo internetka lagu buligaranaya. caruuro badan xataa naftooda khataro u geliyeen bulinka badan ee ilmaha lagu sameynayo. marka inaan ilmaha lala socdo oo xaaladiisa la ogaado markaan gameka ciyaaray internetka, xataa platformada ilmuhu intuu social media inuu isticmaalo maba ahaba. social media sida oo waxaan ka wadaa Facebook, Instagram, Snapchat. ilmuhu markuu yarayo teenage yani ilaa 15 ilaa intuu ilmuhu gaarayo ama ka weyn xataa inuu isticmaalo maba ahaba. imka waxa laga horan 13 markuu ilmihi waa isticmaali kara social media, laakiin ilma 13 waa ilma aad u yar weeyaan. 16 17 wixii ka weyn oo kale oo isticmaali kara ilma at least maskaxdiisu yara fadhido, laakiin ilma aad u yar inuu social media isticmaalo ma aha. meelahaas oo dhan waa ku wada jiraan waana ka ugaarsadaan caruuraha. marka hala foojignaado, caruurtana hala fadhiisto, wax badan loo sheego. ilaahay caruurta hanagu asturo zamankan la joogo. inaga caruurteenan arkaynaa caruuraha ay sii dhaleena allahu aclam waxaa dambeed soo socda, laakiin kulli xaalku marka kooxiga uu kasii adkaanaya. kursiinta iyo waalidnimada shaqadeedu waa kasii adkaanaysa runta haddii laga hadlo. marka ilaahay noo fududeeya baan leenahay, waa shaqo aan sahlanayn, ajirkeedana allah ina siiyo. laakiin ilmaha caruurta indhaha loo furo wax badan, because waxaan rabnaa inaan soo saarno wallahi caruur qiyamka iyo tacaaliima diin alislaami ku barbaarsan oo kownkan waxa ilaahay dadka u keenay ama dariiqa u jeexay caruur qaada oo waxa beritoole markaa dhimatana adigana kusoo daceeya as a waalid ilmo ku xasuusta oo waalidnimadaadii iyo memorieskaaga waxaagii oo dhan ay ku dhex nool yihiin oo maalin kasta markaa dhimato ku xasuusanayaan. u baahanahay ilmo yani saddex unba adduunka kaa raacaya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam yacnihii waxaa kaa raacaya waladun saalax, sadaqa jaariya iyo cilmin yuntafac bihi. ilmo wanaagsan oo kusoo duceeya iyo sadaqa jaariya oo la baxday iyo cilmi naafic oo dadka gaarsiisay. cilmiga kelmadna ha noqotee wax lagaa faa'iidaya dadka la sheer karayso waxa weyn birtoolana sadaqad bay ku noqonaysaa ama birtoolana waa wax oo kaa raacaya dee adduunka markaad ka tegto. marka ilaahay khayrka mar walba hayna waafajiyo, kuwii wanaagas fara mar walba xumaas ka reebana ilaahay haynaga dhigo. tugta toosan ilaahay haynagu wada hanuuniyo dadkeena, inta dhibaataysan ilaahay dhibaatada ka saaro. qurbiyo dalba waa dhibtu waa badan tahay oo dee internetkan waa aafo weyn meel walba jirta, laakiin xagga wanaagsan laga isticmaalo, xagga xunna allah ummadda ka midoobeeya. caruureenana indho gaara waynaan ku haynaa insha allah. intaas kusoo gabagabeynaya. aad baan salaamay dhamaantii waqtigeedii macnaadaan ilaahay meel kasta joogtiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.